impacted by drought, whose severity has not been seen or experienced in 40 years. Axmed Madoobe oo kulamo culus ka wada magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya xilli halkaas uu tagay xalinta khilaafka la dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo iska diiday la kulanka Axmed Madoobe iyo in heshiis laga gaaro arrimaha ka taagan ee gobolka Gedo wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo isku horfadhiya deegaan duleedka ka ah magaalada Beled Xaawo iyo xaaladda oo markale isbedelaysa iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo amar bixisay lagu sifeynayo xeebaha Jazeera Markayla iyo Braawe howlgal culus oo waji cusub ayaa ka bilaabanaya Shabeellada Hoose qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay hogaamiyaha Jubbaland ayaa kulamo culus ka wada magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya halkaas oo uu joogo howlo la xiriira xalinta tabashada kala dhaxaysa Villa Soomaaliya hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo dhowr cisho ka hor ka degay magaalada Nairobi ayaa saacadihii ugu dambeeyay qaabilay mas'uuliyiin xubno safiiro caalamka iyo si guud hay'adaha taageerada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Axmed Madoobe ayaa xubnaha ula kulmay si cad ugu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya xadgudub ay ka wado gobolka Gedo isla markaana ay si gaar ah u beegsanayso waxa uu ku sheegay siyaasadiisa gobolka Jubbaland taas oo uu sheegay in dowladda ay wado waxa uu ku tilmaamay faragelin siyaasadeed iyo madmadow kale oo dadka soo kala dhexgelinayo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sidoo kale kulan la qaatay qaar ka mid ah safiirada caalamka waxa uu ka dalbaday inay ka xiran tahay lacag milyan dollar ah iyo mashaariic loogu talagalay dowladda Jubbaland wuxuuna ka dalbaday in dowladda federaalka ay kala hadlaan arrintaasi loona fasaxo dhammaan mashaariicda Jubbaland ka xiran iyo lacagaha caalamka uu bixiyay qaybta Jubbaland oo weli gacanta Villa Soomaaliya ku jirta dhinaca kale ila wareejyo kala duwan oo aan la hadalna ayaa inoo xaqiijiyay in fashil iyo wajigbax ay kusoo dhamaatay wada hadal la filay in Nairobi uu ku dhex maro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Axmed Madoobe xogta waxay sheegaysaa in madaxweynaha maamulka Jubbaland uu u tagay magaalada Nairobi la kulanka Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii taliyaha sirdoonka ee dalka Kenya Nuruddin Xaaji uu degdeg ugu yeeray magaalada Nairobi wasiirasha madaxweyne Xasan ayaa ka baaqsaday aadista magaalada Nairobi xilli la filayay in maalmaha soo aadan uu tago magaaladaasi waxaana hadda uu wacday dhanka iyo Mareykanka oo uu kaga qayb gali doono shirka meertada golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxaana madaxweyne Xasan uu sheegay in Axmed Madoobe uusan la fariisan doonin ilaa uu ka laabanayo dhammaan doorashadii Jubbaland ee uu isaga ku soo baxay sidoo kalena uu aqbalayo in dib loogu celiyo loolanka doorashada ee Jubbaland oo Axmed Madoobe kaligiis weli u xiran tahay hase yeeshee dhanka Madoobe ayaa ka cagajiiday qorshahaasi wuxuuna si cad u sheegay inaysan wax soconaya ahayn kalaabashada doorashadii dhacday ee isagoo ku soo baxay taasoo qaladaad waaweyn u abuuri karta nidaamka siyaasadda Soomaaliya waxaana ugu dambeyn fashil kusoo dhamaaday ee wada hadalkii la filiyay madaxweyne Xasan iyo Madoobe taasoo ku muujinaysa in khilaafku weli meeshiisa uu yahay labada dhinacna aysan jirin wax heshiis ah iyo wax wada hadal ah oo hadda dhex mari kara madaxweyne Axmed Madoobe oo booqasho shaqo ku jooga Nairobi caasimadda Kenya ayaa la kulmay madaxa mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee bariga iyo koonfurta Afrika ee bangiga adduunka Binyam Reja waxaa kulanka madaxweynaha ku helinaya agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta Jubbaland Cabdi Shukri Carab Cumar kulanka ayaa laga wada hadlay dargelinta mashaariicda ay sida wadajirka ah uga shaqeynayaan wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta ee Jubbaland iyo bangiga adduunka dhismaha wadooyinka halbowlaha ah ee kubcinaya isku xirka dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga gobolka Jubbada Hoose Kismaayo ilaa Afmadow ilaa Dhobley oo 300 kiiloomitir oo laami ah iyo buundooyinka burburay gaar ahaan buundada Baardheere iyo qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha gaar ahaan garoonka degmada Beled Xaawo oo si isxilqaan ah bulshadu u bilaabeen ugu dambeyn bangiga adduunka ayaa muujiyay ka go'aanshihiisa ku aadan fulinta iyo dargelinta qorshayaasha horumarineed ee Jubbaland si loo xaqiijiyo gaarsiinta yoolalka horumarineed ee waara waxaana hadda u muuqata Axmed Madoobe inuu raadsanayo mashaariic kala duwan oo uu ku doonayo in uu si guud uga helo beesha caalamka maadaama weli ay taagan tahay khilaaf hoose oo kala dhexeeya dowladda federaalka kaasoo sabab u noqday in inta badan ay saagaan mashaariicihii iyo horumaradii kala duwanaa ee loogu talagalay Jubbaland dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa la sheegay in uu amar buuxa siiyay ciidamadiisa Jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiishta ee maamulkaasi iyadoo hadda la soo sheegayo in ay maanta iskor fadhiyaan duleedka magaalada Beled Xaawo laba ciidan oo kala taabacsan Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya
waxaana suuragal ah in dagaal culus uu ka dhaco halkaasi sida wararka iyo xogaha aan helaynaba ay muujinayaan. Axmed Madoobe wuxuu wacad ku maray inuusan aqbali doonin in Garbaharey laga dhiso maamul ka madax bannaan nidaamkiisa Jubbaland, taasoo uu sheegay in wax la aqbali karo aysan ahayn. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Doolow ee Gedo Maxamed Xuseen Lafey ayaa kulan la qaatay bulshada degmada Doolow ee gobolka Gedo. Sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay xaaladda gobolka Gedo sida amniga, horumarka gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolow. Dhinaca kale, gudoomiye Lafey ayaa bulshada degmada Doolow uga digay in aysan ku kadsoomin ficilada dowladda federaalka ee ka wada gobolka Gedo. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in gobolka Gedo uu xuduud la leeyahay dalka Itoobiya, isla markaana uu dagaal kala dhexeeyo dowladda Masar oo webiga Niil biyaha isku hayaan, taasoo uu sheegay in xilligan keenista gobolkaasi caqabad kale oo amni oo weyn u horseedayso guud ahaan shacabka iyo si guud dadka reer Jubbaland sida hadalka uu dhigay. Waana midda uu ka duulay Axmed Madoobe oo uu sheegay in haddii Gedo la geeyo Masar ay suuragal tahay isku dhicitaanka iyaga iyo Itoobiya. Dhinaca kale, waxaa maragma doontaa in dowladdu ay ku fashilantay sidii ay u ilaalin lahayd nabadda iyo adeegyada shacabka Soomaaliyeed. Degmada Beled Xaawo waxaa markhaati u tahay burburka siyaasadeed iyo amni ee ka dhashay faragelintii kala goynta aan loo meeldayin ee dowladda federaalka. Shacabka ku nool Beled Xaawo waxay la dala dhacayaan dhac joogto ah iyo amni darro. Maamulka degmada waa mid daciif ah oo aan awoodin inuu shacabka difaaco, halka dowladda dhexe ay ku mashquulsan tahay dana siyaasadeed oo aan shacabka waxba u taraynin. Maalmo yar ka hor, xitaa raashinkii loogu talagalay dadka barakacay ayaa noqday mid la siyaasadeeyo, laguna kala boobay raashinkii dadkii baahnaa loogu yeeray in la siiyo, taasoo muujinayso sida ay dowladda federaalka ahi uga fog tahay daryeelka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhinaca kale, waxaa muuqda dadaalada maamulka Jubbaland oo mar walba u taagan difaaca shacabka, ilaalinta xuquuqdooda iyo xaqiijinta in codkooda la maqlo. Jubbaland waa tiirka keliya ee shacabka Beled Xaawo iyo guud ahaan Gedo ay ku tiirsan karaan marka ay dowladda ka jeesato mas-uuliyadihii saarnaa. Waxaana hadda u muuqataa in reer Gedo iyo si gudba Jubbaland ay wajahayaan xaaladii uga tagtay dhanka siyaasadda iyo isfaham waa xoogan oo ka dhexeeya bila Soomaaliya iyo sidoo kale Axmed Madoobe. Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka dul dhigtay amar cusub oo si dhaqso ah kooxda shabaab looga saarayo deegaanada dhaca xeebaha isku xira Marka ilaa iyo Baraawe. Wejiga labaad ee howlgalka nadiifinta xeebaha koonfureed ee dalka ayaa la qorsheeyay inuu noqdo Marka ilaa deegaanka Gandarshe. Qorshahan ayaa looga gol leeyahay in kooxda laga fogeeyo deegaanada xeebta ah oo la fahamsan yahay inay hubka kala soo degaan dadkana ku baadaan. Sidoo kale waxaa u sahlan inay weeraro badda ah geysan karaan. Taliyaha guutada 6aad qaybta 6aad ee fadhigeedu yahay Baraawe, Liibaan Yuusuf Garre oo dhowaan la magacaabay ayaa gaaray Baraawe, waxaana la faray in howlgalka uu dhaqaajiyo. Furista deegaanada xeebta ah ee Baraawe, Marka, Gandarshe ilaa Jasiira ee koonfur galbeed ayaa kordhin doonta dalxiiska bulshada maadaama aad looga cabsado kooxdaasi. Dowladda ayaa xoreynta dhulka xeebaha ah ugu gogol xaareysa heshiis lagu baarayo shidaalka dhulka goobo aan la cayimin oo ku yaala koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale, waxaa dowladda u qorsheysan in dhulka xeebaha ah ee laga faa'iideysto sida aagga Gandarshe ilaa Jasiira oo ah dhul istiraatiiji ah, waxaana suuragal ah in Turkigu saldhig ka sameysto haddii la xoreeyo sida warar hoose ay sheegayaan. Dhowr mar oo hore ayaa la isku dayay in dhulka xeebta ah la xoreeyo, laakiin shabaab oo dareensan muhiimadda aaggaasi ayaa ku far adeegay. Dowladda ayaa hadda go'aansatay in xoogga la saaro xoreyn deegaanadaasi cadowga uu joogo. Saaxiibayaal, wanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. Nabadgelyo.